anigoo muddo 7 sano ah wax awlaad ah dhalin. dhakhtar walba iyo meel walba aan tagayna wax natiijo aan kala kulmin, ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala igu ilhaamiyey in aan xaggiisa u laabto oo aan xasuusto in wax walba ay gacantiisa ku jiraan, awoodiisa oo keliyana lagu helo. waxaan bilaabay akhrinta istighfaarta iyo sidoo kale qaar ka mid ah aayadaha suuratul baqara. waxaan waday muddo 18 maalin. alxamdulillaah, uur ayaan yeeshay, waxaana dhalay gabar caafimaad qabta oo aad iyo aad u qurux badan. ha fududaysanina akhrinta istighfaarta iyo sidoo kale suuratul baqara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha sharafta leh ee nagu xiran kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub aad u xiiso badan. alxamdulillaah, ilaahayo nimcooyinkaadna siisay noo ziyaada intaan haysnana sii. qof kastoo muslin ah meeshuu ka kurbaysan yahay, ilaahay subxaanahu watacaala kurbadaha kaga faydo. intii deyman lagu leeyahay iyo deymaysan, ilaahay deymaha ka bixiyo. intii xabsiyada ku jirtana ilaahay subxaanahu watacaala ha u fududeeyo oo xuriyadooda dib ha u siiyo. intii awlaad raadinaysan, ilaahay subxaanahu watacaala awlaad baariyaal dhabta u saaro. intii awlaad haysatan, ilaahay ha u barakeeyo oo baariyaal ha uga dhigo. xumaantan ilaahay subxaanahu watacaala ha ka qabto. qof kasta muraadkiisa oon macsilahayn ilaahay subxaanahu watacaala ha siiyo. intii xanuunsan ee xanuun sariirta la saarana, ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad ha siiyo. intii caafimaad haysatana, ilaahay ha u ziyaadiyo. aamiin. aamiinteena iyo aamiinta malaa'igtana ilaahay subxaanahu watacaala ha kulmiyo. walaalaha sharafta leh, aan isxasuusino inaan ku salino xabiibkeena Muhammad. allahumma salli wa sallim calaa nabiyina Muhammadin. istighfaarta ama qofka inuu ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf weydiisto waa hub aad iyo aad u culus oo dadka intooda badan ay ogeen ayna ku baraarugsaneen. midkee anaga naga mid ah oo aan u baahnayn ilaahay subxaanahu watacaala inuu u dembi dhaafo, annagoo og in aan bini aadan nahay oo maalin kasta dembi galayno. hadduu ilaahay subxaanahu watacaala awoodiisa iyo fadligiisa ahaan lahayn, haddii la dhihi lahaa qofkii dembi gala dembigiisa looma dhaafayo, waxay ahaan lahayd culays aad iyo aad u fara badan. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala mar walba wuxuu leeyahay dembi dhaaf i weydiista, aan idin dembi dhaafee. midkee anaga naga mid ah ayaan rabin in uu helo xoolo barakaysan oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa uga yimid? midkee anaga naga mid ah oo aan rabin inuu helo shaqo? midkee anaga naga mid ah oo aan rabin inuu ku noolaado farxad? midkee anaga naga mid ah oo aan rabin inuu ilaahay subxaanahu watacaala siiyo hadiyadiisa oo ah awlaada? haddaba midkee anaga naga mid ah ee ka maarma caafimaad ama aan u baahnayn caafimaad? waa maya. qof kastoo anaga naga mid ah wuu rabaa. haddaba waxaad ka heli kartaa ama waxaad ku heli kartaa akhrinta istighfaarta. waana sir weyn oo dadka badankood aysan ku baraarugsaneen. haddaba qisadeena ugu horeysa ee maanta, gabadhaani waxay leedahay istighfaarta iyo ducada, baryada ilaahay subxaanahu watacaala la baryaayo. waxa keliya aan ku tilmaami karo waxay tiri sixir inay la mid tahay, yacni sidai cajiibka u tahay. waxay tiri hadhihina mustaxiil waaye ama macquul ma ahan inay dhacdo. aniga ay iigu rumowday waxyaalo aan dhihi jiray waxaas macquul ma aha, adduunyada kama dhici karaan iyo mana suurtageli karto. waxay tiri gabadhan waxaan akhrin jiray istighfaarta, waxaana raacin jiray ducadan: allaahumma arinii cajaa'iba qudratika fii taxqiiqi maa atamanaa. allaahumma arinii cajaa'iba qudratika fii taxqiiqi maa atamanaa. waxay tiri istighfaarta ayaan akhrin jiray, waxaana raacin jiray ducadan. waxaan kaloo akhrin jiray ayay tiri saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. ilaahay riyooyinkeyga oo idil waa u ii rumeeyey. waxyaalo aan islahaa waxaas inay adduunkaba ka dhacaan macquul ma ahan, ayuu aniga ilaahay subxaanahu watacaala ii rumeeyey ayay tiri. gabadhan waxay leedahay qisadeeda ku saabsan istighfaarta iyo sadaqada. waxay tiri waxa ay haystay murugo aad iyo aad u fara badan. nafteedii waxaan dareemay hooseen. waxay tiri waxaan gaaray heer anigoo salaada ku jira xataa murugta ay haysa darteed aan la ooyo. ilaahay subxaanahu watacaala ayaan baryay inuu faraj ii furo. meel ayaan fadhiistay ayay tiri markii aan salaada ka baxay. waxaan akhriyay istighfaarta.
kadibna wuxuu ilaahay niyadeyda ku soo riday inaan sadaqa la baxo. waan baxay anigoo dhan lahayn ayaan baxay ayay tiri. waxaan u baxay kaliya inaan wax soo sadaqaysto. ilaahay subxaanahu watacaala intii aan awooday ayaan dad masaakiina kusoo sadaqaystay. gurigeyga ayaan kusoo noqday ayay tiri anigoo wali wada akhrintii istighfaarta. waxay tiri alxamdulillaah salaadii cishaha markii aan tukaday ilaahay faraj ayuu ii furay, murugtiina waa uu iga qaaday. haddana waxaan dareemayaa ayay tiri farxad. qisadeena saddexaad ee maanta waxay ku saabsan tahay gabadhaani waxay tiri gabar saaxiib ah oo aan aad iyo aad isku fahansanayn, oo muddo dhowr sano aan saaxiiba ahayn, oo aan isa siiyey, oo aan sir iyo waxba kala qarisan jirin, oo walaashay oo kala ka dhigtay, ayaa waxaa dhacda ayay tiri in aan kala go'no oo dhexdeena uu soo galo shaydaan. gabadhan ayada ayaa igu dulmisa ayay tiri oo dalbatay xiriirkeena inaan jaro. waxyaalo aan aniga sameynin ayay igu nabta ayay tiri. gabdho kale ayaa isku keendiray. waxay tiri arintaas aad ayay xanuun iigu ahayd, waayo waxay ii ahayd saaxiibka kaliya ee adduunkan aan ku leeyahay. waxay tiri waxaan go'aansaday inaan ilaahay subxaanahu watacaala baryo in gabadhaas qalbigeeda ii soo jeediyo, ayna ogaato xaqiiqada iyo isfahamwaaga dhexdeenana been inuu yahay inay ogaato. waxaan akhrin jiray ayay tiri maalin kasto ilaa 3,000 oo niyo anigoo u istighfaarsanayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala u dambi dhaafo, anigana ii dambi dhaafo, ilaahayna isku kan celiyo. aniga gabadhaas saaxiibtay ahayd. muddo kooban markii aan waday waxay tiri meelihii ay baloogta iga saartay dhan way iga qaaday. waa ay soo wacday waxayna ii sheegtay inay ii imaanayso oo ay doonayso inay raali geliso, inay ii xiistay ayay ii sheegtay. runtii waxay tiri aad ayaan u farxay, ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u mahad celiyey. waad la yaabi kartaan ayay tiri gabar saaxiib ah in sidan dhan ilaahay dartiis loogu baryo. laakiin waxay tiri saaxiibtinimada qaar, walaalnimada xataa waxaa laga yaabaa inay ka dhowdahay. waxaan ahayn saaxiib aad iyo aad isugu dheer. alxamdulillaah way ii imaata ayay tiri wax walba oo mudmadow oo dhexdeena ahaana waan xalinay. qisadeena xigta ee maanta waxay ku saabsan tahay gabadhaani waxay tiri waxaa jirtay inaan aad u jeclaa in aan helo TV. waxayna tiri mana awoodin, annaga oo dhaqaale ahaan maanan awoodin. waxaan kaloo jeclaan jiray ayay tiri jaamacadda inaan galo kulliyadda ama qaybta dhakhtarnimada ayaan aad u jeclaa ayay tiri gabadhan inaan galo. laakiin aabahay mar walba wuxuu dhihi jiray lacag ma hayo. arintaasna waxay ahayd arin aan suurtagal ahayn in aan dhigto kulliyadan caafimaadka. laakiin waxay tiri ilaahay subxaanahu watacaala markii aan bariyay dhaladii ama telefishinkii aan ku riyoon jirin, ilaahay subxaanahu watacaala si fudud ayuu noogu soo geliyey. sidoo kale jaamacadina waxaan helay ayay tiri jaamacad free ah oona ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn magaalada. kulliyadii caafimaadka aan rabaynay waan ku helay ayay tiri. qisadeena kale ee maanta waxaa ka sheekeynaya wiil. wuxuu yidhi muddo 1 iyo 5 bilood ah waxaan raadinayay shaqo. dadka dhan waxay dhihi jireen dadkii kaa weynaa iyo walaalaha ayaanba weli shaqo helin, ee jaamacadaha marka hore soo dhameeyay iska fadhiisa meel. macquul maaha inaad shaqo hesho, wadankan shaqo ma taalo, waxba ha isdaalinin. wuxuu yidhi aniga ma quusanin oo 1 iyo 5 bilood waxaan daba ordayay marba meeshii aan isleeyahay shaqo ayaad ka heli kartaa. CV ayaan u gudbisanayay ayuu yidhi, laakiin wax natiijo ah maanan helin. markii 1 iyo 5 bil aan daalay waan iska fadhiistay ayuu yidhi. waxaan go'aansaday in aan waxbarashadayda khadka kasii barto oo aan nolosheeda iska sii wato oo aan shaqo isku mashquulinin. waayo wuxuu yidhi markaan waa qoostay 1 iyo 5 bil waqti yar ma ahan ayuu yidhi. maalin maalmaha ka mid ah anigoo muuqaalo iska fiirsanaya ayaa waxaa iga soo horbaxay muuqaal ka hadlaya istighfaarta iyo faa'iidada ay leedahay iyo sidoo rajooyinka ay dadka leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala ugu suurtagelinayo. wuxuu yidhi waxaan go'aansaday inaan akhriyo istighfaarta anigoo u niyeysanaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala shaqo igu siiyo. kamaba soo wareeganin 3 bil ilaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ii sahlay shaqo aad iyo aad u fiican, mushaarkeeduna uu aad u badan yahay ayuu yidhi. qisadeena ugu dambeysay ee maanta waxay ku saabsan tahay gabadhaani waxay tiri muddo 7 sano ah wax uur ah ma aanan yeelanin. albaab walba iyo meel walba iyo dhakhtar walba ee lii sheegay waan tagay. markii aan wax natiijo ah ka waayay oo aan daalay oo wixii lacaga aan haystayna ay dhamaadeen
ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qalbigayga ii xasiliyey. waxaan ogaaday awlaad inay tahay wax ilaahay subxaanahu watacaala ku jira gacantiisa keliya. dhakhtar ma haayo, cid kale ma hayso. ilaahay qofka uu siiyo waa helayaa, kuu siinana ma helaayo. waxaan go-aansaday ayay tiri inaan akhriyo istikfaarta. waxaan soo xasuustay aayadaha ilaahay ee ah faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. waxaan soo xasuustay in istikfaarta uu ilaahay subxaanahu watacaala yiri awlaad ayaan idinku siinayaa. sidoo kale waxaan akhrin jiray ayay tiri qaar ka mid ah aayadaha suuratul baqara. alxamdulillaah markii aan waday muddo 18 maalin oo keliya ilaahay subxaanahu watacaala uur ayuu i siiyey. haddana waan dhalay ayay tiri. waxaana dhalay gabar aad iyo aad u qurux badan oo caafimaadkeedu taam yahay. haddaba yeesa idinla fududaanin istikfaarta iyo akhrinta suuratul baqara. waxay tiri waa cajiib noloshaada ayay bedelaysaa. ilaahay subxaanahu watacaala hanoo dambi dhaafo, intii muslin ahna dambi dhaaf biidnillaah. waa mahadsantiin walaalaha sharafta leh. muuqaalka laag saara si uu walaalo badan u gaaro. qaybta hoose kommentigan aan ku xusno saliga xabiibkeena maxamed. wassalaamu calaykum.